بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaan sii dhammaystiri doonaa maxamed calayhi salaatu wasalaam nuqsaantu halkay kaga jirta caqliga ay ku idhahdeen yaa rasuul allah wamaa nuqsaanu lcaqli sidee baanu caqliga naaqus uga nahay wuxuu ugu jawaabay amaa nuqsaanu lcaqli caqliga waxay naaqus kaga tihiin fa shahaadatu mra'atayn laba gabdhood makhraatinnimadoodu waxay u dhigantaa tacdiilu shahaadata rajulin nin makhraatigii ayay u dhigantaa markaa waxay yidhaahdeen xadiisku aayadda qur-aanka ee aayatu deyn la ydhaha aayadda deynta suuratu baqara ee aayadda 282 ee suuratu baqara ayuu xadiisku faahfaahinaya uu fasiraya marka aayadda fahm qaldan ayay dadka qaar ka fahmeen oo marka ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan deynta uu ka hadlay ilaahay wuxuu sheegay in deynta marka la kala qaadanayo maadaamay tahay hanti ay tahay wax hanti la xidhiidha oo maaliyadda la xidhiidha in la adkeeyo oo marka la kala qaadanayo nooto la kala qorto nootayo la kala qorto makhraatina la samaysto qof lagu kalsoonyo caadilana loo yeedho oo u kala qoro dadka waxay kala qaadanayaan dad makhraatiyana meeshii la keeno marka ilaah wuxuu yidhi wastashhiduu rajul fain lam yakunaa haddii laba nin aad weydaan fa rajulun hal nin wa mar'ataan iyo laba gabdhood miman tardawna min ashuhadaa oo dadkaad raaliga sababtu ilaahay labada gabdhood u doortay oo gabadh keliya uga dhig waayo laba gabdhood uga dhigay ilaahay wuu sii sheegay wuxuu yidhi an tadilla ixdaahumaa waxaa laga yaabaa labada gabdhood midkood inay khaldanto fa tudakira ixdaahumaa ta kalena ay saxdo al ukhraa tan khaldantay ay saxdo oo ay tidhaahdo wixii lagu heshiiyey sidaa meeheene heblaayo sidaas ay ahayd oo ay saxdo marka an tadilla ixdaahumaa ayaa waxay u fahmeen culummo badan oo mufasiriini inay macnaheedu tahay ilow inay ilowdo midkood wixii lagu heshiiyey oo ta kale ay xasuusiso fa tudakira ixdaahuma al-ukhra waxaan dib u raacay oon dib u muraajaceeyey tafaasiirtii culummada ilaa 20 kitaab oo tafaasiirtii hore ka mid ah tafaasiir mucaasara tafaasiir qadiima tafaasiir salafiya tafaasiir suufiya tafaasiir badan oo kala duwan ayaan dib u eegay waxaa aada ii cajabiyey kitaab la ydhaa tafsiir ulmanaar oo sheekh rashiid rida uu qoray fasiritaankiisa marka haddaba waxa weeye ujeedadan kelmadan u duubay caawa waxay tahay aayadda qur-aanka ma laga fahmayaa in ilaahay subxaana wa tacaala caqliga dumarka uu ku sheegay ama uu ku tilmaamay inay naaqus yihiin ama xifdigoogu uu yar yahay sheekh rashiid muxuu yidhi sheekh rashiid rida wuxuu yidhi markuu fasirayay aayaddan qur-aanka ah lagama fahmaya buu yidhi horta aayaddu ilowba ka hadli mayso waxay ka hadlaysaa waa khata inay khaldanto midkood oo ta kalena xasuusiso waayo ilowg iyo khaladka qur-aanka u kala saaray laa yadilu rabbii walaa yansaa markuu ilahay ka hadlayay rabbigay ma khaldamo waxna ma ilaabo marka dalaalka waxaa laga wadaa halkan hunaa alkhata waa gefka laga wadaa laakiin ilowga waa wax kale walaa yansa dumarkana dee ragga way ka duwan yihin xaalada adag bay ku jiraan mararka qaar mar waa fool mar waa umul oo way foolanayaan mar uur bay leeyihiin mar dhiig caadaa ka socda mar dhiig dhalmaa ka socda waxaas oo dhanna waa xanuun qofku markuu xanuunsanayana stress iyo warwar iyo walbahaar baa iskaga furan marka la makhraatay ka noqonayso goob hanti la kala qaadanayo hanti iyo maal oo la saxiixayo warqado waxaa laga yaabaa inay khaldanto oo sidii waxaan ahayn ay wax u sheegto markaa way iskabayaan labada dumarkii way iskabayaan laakiin aayadda qur-aanka in laga fahmo oo xadiiska aynu ka soo hadalnay lagu fasiro oo inay dumarku ka xifdi yar yihiin oy ka xifdi liitaan ragga guud ahaan waa tafsiir khaldan weeye waa tafsiir khaldan
sheekh rashiid rida wuxuu yidhi markuu ka hadlayay arrintan inay culammada qaar ku fasireen ilow ay ku fasireen ay dumarku xilaabaan ayuu sheegay wuxuu yidhi culammada waxaa ka mid ah saciid bin jubayr imaam daxaak iyo culamo badan oo kala ka mid a waana runtii oo culamo badan markii marka tafaasiirta aan akhrinayay culamo badan baa sidaa ku fasiray markaana wuxuu yidhi imaam rashiid rida ولهذا أعاد اللفظ إحداهما مظهرا وليس المعنى لألا تنسى واحدة معنوه ما لألا تنسى واحدين بدحيلو فتذكرها الثانية كما فهم كثير من المفسرين وسيدة فهمين بولي قارب بدن المفسرين مركو كهل ليها الدباء محل آيات معنيه محيطة وقد علل بولي بعضهم كون النساء عرضة للضلال أو النساء dadka qaarkood waxay ku fasireen buu ku cileeyeen sababta ilaahay laba gabdhood uga dhigan makhraati inay ka noqdaan marka hantida la ka saxeexanayo la kala amaahanayo oo ninka ay ugu dhigmayso makhraatinimadu makhraatiga ninka laba makhraati ay ugu dhigmayaan oo dumarkii wuxuu yiri culimada qaarkood waxay ku cileeyeen arrintaas bi annahunna dumarku naaqisaat gabdhood makhraati ha ka noqdaan oo halkii ninka laba gabdhood ayaa lagu bedelaya haddii ninka la waayo وحولي هذا بس صببتي وقول علينا ناقصات عقل الدين وامحي وعلل بعض بكثرة الرطوبة في أمزجتهن وحيد هذين عاطفة أيا كوبادن دمرك قاركون وحيد هذين سيد الزندان يوكل وحولي هذا علم جن حديث كوحو قاري دمركو يرقوا إن مسكحدو دو كلا دوانتاي وننك مسكحديس وحولي لبا خاند حسوسة يخاند وكهالله dumarkuna way leeyihiin sidaasoo kale way simeyn khaanad hadalka iyo khaanad xasuusta laakiin wuxuu sandaan markay hadlayaan uu ninku hadlo waxa shaqaysta khaanada hadalka khaanada xasuustuna safe bay u noqotaa laakiin dumarku markay hadlaan labada khaanadoodba mar qulay wada adeegsadaan marka wixii ay tiray waxa laga yaabaa inay iloodo oo labadii khaanadoodba isku dhex yaacaan laakiin wuxuu yidhi imaam rashiid rida saasay ku fasireen buu yidhi culimmadaasi inay caadifada dumarku badan tahay oo taasina keenayso in xasuustooda iyo xifdigoodu uu naaqusmo wuxuu yidhi wahada gayru mutaxaqiq laakiin arrintaasi maaha buu yidhi arrin dhab ah oo xaqiiqa ah والسبب الصحيح بيقول سببته صحيح waxay tahay أن المرأة ليس من شأنها gabadha maaha arrinteeda iyo waxyaabaha ay caadiyan ku dhaqanto maaha الاشتغال بالمعاملات المالية arrimaha maaliyadda iyo arrimaha suuqa iyo ganacsiga inta badan dumarku kuma dhex jiraan caadadoodana maaha wanaxwiha min almucaawadaat arrimaha ganacsiga iyo arrimaha deymamka iyo arrimaha maaliyadda la xidhiidha dumarku inta badan caado ma leh waayo dumarku waxay u badan yihiin guryaha iyo tarbiyadda ubadka marka wuxuu ku leeyahay rashiid rida ilaahay raaliha ka noqday ilaahu naxariistee فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيف سيدا وجد بحسوستيد وحين قونيسا ضعيف ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية لكن أرماء قرية مركا نقطو ده مسكح ديدو ضعيف نمها منانا قصنتو مشغول لكم مفرنا وهي أرماء قرية مروا البوي كل احترتا مانين كستي التي هي شغلها وأنا شقديد فإن فيها أقوى ذاكرة من الرجل ninka way kaga xasuus fiican tahay oo way kaga xifti badan tahay arrimaha guriga waxaana caada buu yidhi oo la yaqaan qof kastoo bani aadamka waxa dabeecad basharka ka mid ah wixii uu ka shaqeeyo inta badan uu ku badan yahay ee hamigiisu uu badan yahay inta badan uu xasuusta qofka maskaxdiisa iyo xasuustiisuna way ku korodhaa laakiin wuxuu qofku haddaanu mashquulba ku ahayn oonu badanka ku dhex jirin dee iskuma mashquulinayo sidaa ogeed baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala markaad wax kala daynsanaysaan ood wax kala amaahsanaysaan laba nin waayo raggaa waxaan ku fiican waa lagu kala fiicay laba nin makhraati ha ka noqdaan haddii labadii nin mid la waayo oo nin kaliya la helo waxa booskiisa buuxinaya buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala laba gabdhood sababtuna waxa weeye dumarku inta badan arrimaha deynka iyo arrimaha ganacsiga iyo maaliyadda inta badan hawshooda ma aha marka waxa laga yaabaa inay khaldanto waxana waa arrimo la xiriira maaliyad iyo xuquuq bani aadam
markaasi ay isku kabaan ayuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala oo isku caawiyaan ha isgarab siiyaan oo laba dumar ah noqdaan taani lagama fahmayo walaalayaal inuu ilaahay subxaana watacaala dumarka ku liiday ama ilaahay uu sheegay inay dumarka caqligoogu naaqus yihiin sida xadiiskaa laga fahmayo aynu kasoo hadalnay marna laga fahmi maayo aayadda qur-aanka inay xifdigoogu daciif yahayna lagama fahmayo in lagu fasiro aayadda qur-aanka in dumarka xifdigoogu naaqus yihiinna waa mid caqliga iyo qur-aanka iyo cilmiga ka fog oo in lagu fasiro culamo badan sidaa ku fasirayna waa khalad sidaa uu sheegay sheekha rashiid rida fahamkaasi waa fahm qaldan dumarkuna waxyaabo badan ayay makhrad ka noqon karaan laakiin aayaddan waxay gaar ku tahay un arrimaha deenka iyo arrimaha maaliyadda iyo waxyaabihii la kala saxeexanayo ayay gaar ku tahay intaasaan kelmadda kusoo gabagabaynaynaa inaan aayadda qur-aanka laga fahmayn in xifdinta dumarku ay daciif tahay ama caqligoogu daciif yahay waxaan kaloon baraarujinayaa dumarka aayaddan ilaahay subxaana watacaala waa naxariis ugu naxariistay inay makhraati noqdaan laba ay ku noqdaan waayo dumarku xaalado badan bay maraan oo xanuun ah haddii dhiigga caadada leedahay way xanuunsanaysaa macnaheed weeye haddii dhiigga dhalmada leedahay way xanuunsanaysaa uur hadday leedahay waxaasoo dhan waa xanuun marka naxariis ilaah u naxariisanayo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu uga dhigay inay laba noqdaan oo iskaalmeeyaan taasina waa naxariis ilahay